maxamed xasan cabdulle waa dhibana muddo 2 sano ah la xanuunsanaa cudurka dhiigkarka waxaana cudurkaasi ku sababay inuu u naafoobo. maxamed ayaa noo sheegay inuu awoodi waayay dawooyinkii uu dhakhtarku u soo qoray wuxuuna ummadda islaamka uu ka codsaday in ay soo caawiyaan. bismillaahi rahmaani rahiim. magacaygu waa maxamed xasan cabdulle oo loo yaqaan caato. xasiinta saanahay 2 sano waxa igu dhahay cudurka dhiigkarka. markii hore waxaan nin xoosha oo makaanig ka shaqeysa isbitaal ayaa leekay markii cudurka igu dhahay. isbitaalka waxaan ku jiray 3 bilood. isbitaalka inta ku jiray isbitaalka waxa soo qoray daawoon ilaa inta ruuxa ku soo shaqaaleysay mid kale fiisarbina waa la diray. waxna ma hayso waxna ma awoodo saasa oo jeedid asiita 2 sano saarnaa. marka insha Allah ta'ala waxaan rabaa ummadda Soomaaliyeed inay qabtaan dhammaan markay joogaan dalxiis maqarkay taqaan. markaygan waa fara waxa waaye eber hal 9 85 4 6 7